Heesaan website-kan la yiraahdo Indeed oo lagu xayisiiyay shaqooyinka sanadkan 2020 wadanka Mareykanka qofkii yaqaana Python wuxuu ku shaqayn karaa lacag ka badan $120,000 halka wadanka UK uu ku shaqayn karo ilaa £70,000 lacag gaaraysa. Baahidu ma taalo Europe ama America, laakiin waxaa sii kordhaysa caalamka oo dhan baahida loo qabo Python. Haddaan fiirino Soomaalida oo la qiyaasayo sanadada soo socda inay la qabsadaan aaladda internetka, waxaa la qiyaasayaa kambaniyaal waaweyn ama kuwo yaryar oo badan inay soo bixi doonaan oo u baahan in loo sameeyo website-yo ama application ama software kaleeto. Khasab maaha inaad u shaqaysid company, kaliya ayaa shaqaysan kara adoo gurigaaga jooga oo shaqooyinkaaga kaleeto ama ehelkaaga kaleeto la jooga. Waxa kaliya oo muhiim ah inaad haystid internet ama laptop ama computer. Haddii aan fiirino website-kan oo ah suuqyada ugu waaweyn oo dadka iskood u shaqaysta ay is soo geliyaan, haddaan ku qoro Python aan ku dhufano kan, qofkan wuxuu soo qortay £34 oo rabo inuu ku qabto waxa la dhaho web scraping ama data mining oo ah shaqo lagu qaban karo saacad ka yar asagoo gurigiisa jooga. Qiyaas hadduu qabto 8 saacadood maalintii waxay noqonaysaa lacag ka badan £240 inuu sameeyo. Haddaa ku dhufatid week way ka sii badan tahay. Qofkani wuxuu joogaa wadanka Croatia. Daba haddaan bilowna casharadeenii, waxaan ku bilaabaynaa meesha laga helo. Waxaa soo furataan Google-ka, waxaa ku qortaan Python, waxaa idiin soo baxaysa website-ka ay leedahay Python oo la dhaho python.org ama python.org. waxaa halkan ku arkaysaan farshika ugu dambeeyay oo ah 3.8.3, laakiin haddaad bil kadib ama sanad kadib soo noqotay waxaa dhici karta numberkan inuu isbedelo oo 3.9 noqdo ama 4 noqdo. Website-kan waxaa kaloo ku jira macluumaad aad u badan oo muhiim ah. Su'aal ahaan haddaan ku dhufto documentska, haddaad rabtid inaad casharo kala socotid waxaa ku dhufanaysaa kan. Waxaa kuu soo baxaysa casharadii oo ay diyaariyeen dadkii qoray software-kan. Casharada ugu horeeya oo lagu bilaabo waxaa ka mid ah kuwan. Luqadda Python waa luqadda ugu fudud luqadda coding lagu sameeyo, waxaana lagu baran karaa waqti aad u kooban oo asbuuc dhammayn. Haddaba waxaan idiin soo diyaariyay 8 qodob aan isiri waa 8 qodob oo aas-aaska u ah luqaddan. Haddaad 8 qodob si fiican u baratid, waxaa xaqiiq ah inaad ku samayn kartid application muddo yar oo kooban, sida inaad website ku dhistid ama software kale ku samaysid. Aan bilowna casharkeeni. Waxaa soo furtaan Google-ka, waxaa ku qortaan Google Colab. Google Colab waa meesha lagu qoro ama lagu run gareeyo website programming-kan. Dib ayaan idinkaga sharxi doonaa kuwo kaleeto, laakiin kan waa kan ugu fudud oo aan isleeyahay qofka beginner-ka ama bilowga ah u fudud yahay, waana online, kaagama baahna wax la soo dejinayo. Waxay kaliya u baahan tahay inaad tirahdid run. halka waxa u baahan yahay waxa weeye inaad leedahay Gmail. Waxaan filayaa qof walba in ka mid ah inuu Gmail leeyahay. Wax kale uma baahna. Waxay u baahan tahay Gmail-kaaga log in aad ku samaysid. Su'aal ahaan oo ku dhufano, waxaa ku weydiinayaa sign in, kadibna waxaa ku qoraysaa Gmail-kaagii, kadibna wuxuu ku geynayaa meeshaan. Okay, halkan markaad timaadid, halkan aniga kuwa hore aan sameeyay weeye, laakiin adigu waxaa ku soo baxaysa meel bannaan. Waxaa ku dhufanaysaa meeshaan, waxaa ku taala new notebook baa ku dhufanaysaa. Tilaabada ugu horeeya aan qaadayno waxa weeye aan ciwaanka ka bedelno baalkan, aan u bixino casharkii koowaad 8 qodob aas-aaska Python. Qodobka koowaad waxaa ka mid ah numbers. Numberska waxaa loo kala qaybiyaa 2 qaybood. Waxaa la dhahaa integer
iyo float. Integerku waa numberka dhammaystiran sida 1, 2, 100, 1,000,000. Floatkuna waxa weeye numberka pointiga la socdo sida 1.0, 2.5, 0.1 iyo wixii lamid ah. Numberska waxaa la isugu dhufan karaa sida caadiga ah. Aan tirtirno. waxaa u isticmaali kartaan Colabka as Pythonkan as a calculator ama calculator ahaan ayaa isticmaali kartaa. waxaa leedahay 100 lagu dhuftay. lagu dhufashadu waa calaamad star 2. hadaad tirahdid shift enter ayaa dhahaysaa markaa run garaynaysid 200 bay ku soo baxaya. hadaad tirahdid conton laga jiray 100 laga jiray conton, shift enter, shift ayaa qabanaysaa marka hore kadibna enter ayaa dhahaysaa. waxaa ku soo baxaya numberkii. haddaa rabtid inaad isku dartid sidoo kale isku dar weeye. aan ugu dambna soo qaybinta loo qaybiyey waxaa isticmaalaysaa backslash kadib waxaa ku soo baxaya. haddaa 2 u qaybino shift enter dheh waxaa ku soo baxaya float number. labadii qaybood aan numberka u qaybiyey mid ka mid ah oo la dhaho float waxaa la socota pointy. haddii aadan rabin inaadan pointiga aada arkin waxaa leedahay 100 double backslash 2 waxaa ku soo baxaya conton clear. mararka qaarkood waxaa haystaa 17 oo ahayn number aan 2 u qaybsamin. tusaale ahaan kan kaas ku saraya laakiin 17 2 backslash 2 haddaan qoro 8 clear 5ka meesha ka saaraya. waxaa kale oo numberska samayn kartaa sida xisaabta caadiga ah. 2 lagu dhuftay 2 jeer isku dhuftay square lagu sameeyey. waxaa isticmaalaysaa 2 jeer ayaa star taabanaysaa. waxaa ku soo baxaya 4. haddaa rabtid 2 oo la power 7 ama 7 la dul saaray waxaa ku soo baxaysa 2 jeer ayaa power dhahaysaa. isu qaybinta iyo hal mar haddaa rabtid inaad isu wada qaybisid isku dhufatid. tusaale ahaan 2 lagu dhuftay 6 loo qaybiyey 5 lagu daray 3 laga jiray 9 laga jiray 9. sida xisaabta caadiga ahayd oo kale ayuu sameynayaa. marka hore wuxuu isku dhufanayaa multiplicationka ugu horeeya divisionka kadib pluska minus ku xiga. haddii uu la socoto tusaale ahaan plus 3 open bracket haddaad qoys dhexgelisid oo tirahdid kadibna tirahdid lagu dhuftay 3 tusaale ahaan wuxuu sameynayaa marka hore wuxuu isku darayaa wixii qoys ku jiro ayuu mar walba bilaabaya. taas waa xisaabtii caadiga ahayd oo hore u taqaaneen. aan u gudubno haddana waxaa la dhaho strings waa wax alle oo tusaale ahaan xaruuf ah letters ah ama xuruuf ah. tusaale ahaan letter waa string. waxaan magacayo kaleeto Maxamed waa string. x waa string. wax walba oo string ah khasab waa inaad raacisid waxaa la dhaho single quote oo double quotekaas quotationkaas ama double quotation noocan oo kale raacisid. tusaale haddaan siiyo Maxamed haddaan qoro oon dhaho shift enter run gareeyo wuxuuna siinayaa error. wuxuu leeyahay ma fahmin. Python ma fahmi karto. waxay kaliya ku fahmi kartaa inaad raacisid waxa la yiraahdo single quotation or double quotation. double single kaasaan gelinaynaa hal xabo kadibna haddaa dhaho shift enter wuxuu u fahmayaa inay tahay string.
markaasuu fahmi doonaa. Hadda waxa kale oo waxa u baahatay tusaale ahaan UK haddaan qoro UK keliya haddaan run gareeyo wuu khaldayaa, laakiin khasab waxaa igu ah inaan raaciyo single quotation kadibna UK ayuu run gareynayaa. waxaa kale oo samayn kartaa Maxamed aan ku bilowno quotationka Maxamed, kadibna waxaad dhihi kartaa 9 oo kaleeto. marka 9kii iyo Maxamedkii labadaba waxay isku noqdeen waxaa la dhaho string. dib ayaan ka fahmi doontaan string iyo integerka iyo floatka si fiican ayaa u fahmi doontaan, laakiin hadda sii fahma in la jiraan waxa la dhaho string iyo waxa la dhaho float iyo waxa la dhaho integer. aan u gudubno qaybteena saddexaad oo ka mid ah qodobka koowaad state qodob waa variable waa variableka waxaa la dhahaa wax alle wixii lagu keydsado waxa lagu keydiyo xuruuf lagu keydiyo ama number ama letters waxay doon ha ahaadee. su'aalaha haddaan ku siiyo name equal Maxamed, inaa quotationkii mar ha hilmaamin Maxamed. hadda ereyga name waa variable. maxaa ku ogaan inuu variable yahay? waxaa la socda equal. calaamadda equal tan ma ahayn equaltii la midka ahayd, laakiin midaan waa mid wax lagu keydiyo keliya. tusaale kale haddaan siiyo x waxay ku keydsanaynaa maaha waxay la mid tahay waxaan ku keydsanaynaa 5 kuma baahna quotation waa integer quotation uma baahna saa idiin sheegay strings keliya u baahan quotationka. marka wax kaloo samayn karnaa haddaan run dhahno haddaan dhahno x maxay la mid tahay maxaa ku save garaysanay way noo sheegaysaa 5. haddaan dhahno name maxaa inoogu save garaysan waa inay Maxamed soo qorto. waxaan kaloo oo samayn karnaa waa isku dhufan karnaa. waxaan leenahay tusaale ahaan weight culayska qofka waxaa kasoo qaata inuu yahay 70 kg, dhererkiisana waxaa kasoo qaataa inuu yahay 1.8 meter. kadibna waxaan leenahay isku dhufo weight labadan isku dhufo weightka oo lagu dhuftay dhufashadu waa star saa hore idinkugu sheegay iyo heightkiisa. kadibna wayna noo soo baxdo 726. hadda labadan isku dhufatay 126 wayna kuu soo baxdo. waxaa kaloo samayn kartaa si hadda sameeye x waxay ku keydsanaysa noogu keydsan variableka x la dhaho 5 y-na waxaan ku keydsanaynaa 3. kadibna haddaan isku dhufano x iyo isku dhufashadu waa star iyo y inay noo soo baxdo 15. halkaas waxaan ku barnay waxaa la dhaho variablekii numberskii iyo stringskii waana aasaaska koowaad ee qofku la rabo inuu fahmo. waxa kale oo aan ku darayaa intaan soo gabagabayn qaybteenan koowaad in tusaale ahaan ereyga word haddaan qoro aan ku keyd garaysano equal. hadda intaan aragtaan waxaa ogaanaysaan inay word tahay wax variable. tusaale ahaan waxaa samayn kartaan word waxba space ahaan uma dhexaysiin kartid haddaa rabtid equalta. haddaa rabtid word ereygaa waxaad doontaa loo bixi kartaa. waxaa raacin kartaa number waxaa dhihi kartaa sidaan kadibna equal. waxaa muhiima inay equalta la socoto, laakiin ereyo gooni aadan la bixi karin oo Python gooni u ah baa jira. laakiin hadda wixii inta badan waa la bixi kartaa. tusaale ahaan ereygan oo kaleeto lama bixi kartid maxaa yeelay waa wax erey khaas u ah. ereyada khaaska u ah Python dib ayaa ka baran doonaa. tusaale ahaan hadda variablekan haddaan qorno oo ah word aan dhahno equal to Python waa letters strings way inaan sameyno quotation ama single ama double quotation midkaa doonta raacaysid Python. haddaan dhahno enter haddana run garayno erey word waa inay noo soo baxdaan Python. marka luqaddan Python waxay ka bilaabataa
hadda ereygan wuxuu ka kooban yahay 1 2 3 4 5 6 xuruf, laakiin sida caadiga qofka biniaadamka wuxuu ka biloobaa markuu wax xisaabinayo 1 2 3 4 5 6 buu dhahaa, laakiin luqadan waxay u fahmaysaa oo ay ka bilaabataa 0. hadda b waa 0, y-na waa 1. haddaan idin dhaho wax yar aamusa, wax yar ka fakaraan ka wada. haddii aan qoro ereygan tusaale ahaan word aan raaciyo, waa inaan haddaan letters qoraysa waa inaad quotation raacisid saa hore idinkuu sheegay python, kadib dhahno run ereyga word aan run garayno, waa inuu pythonka noo soo saaro. marka waxaa rabtaa xaraf ka mid a python inaad la soo baxdid, tusaale xarafka b oo kaleeto inaad soo saartid. waxaa qoraysaa word, kadib waxaas furaysaa qoysooyinka noocaasa ama bracketka noocaasa, ereyga zero ayaa ku qoraysaa. python siday ku bilowda numberkeed waxa weeye, tusaale ahaan b waxay noqonaysaa 0, y waxay noqonaysaa 1, laakiin qofka caadiga wuxuu ka bilaabaa 1 2 3 4, laakiin luqadan waxay u xisaabtantaa, waxay xarf walba ka bilaabaysaa ama shayga bidixda u xiga waxay ka bilaabaysaa 0. kadib haddaan dhaho shift enter haddaan dhaho b buu na siinayaa. haddaa rabtid xarafka ugu dambeeya inaad soo macnaha n oo kaleeto ama na Soomaali, haddaa rabtid inaad keliya la soo baxdid, waxaa kaloo dhahi kartaa word equal ma qoyska furaysaa -1 ayaa dhahaysaa. gadaal haddii python waxay samaysaa oo kaleeto, gadaal haddaa rabtid inaad gadaal usoo socotid, ereyga ugu horeeya 0 ma ka bilaabanaysa, waxay ka bilaabanaysaa -1, kadib -2 -3 saas u soconaysaa. haddaa kan run garayno hadda inay noo soo baxdo n noo soo baxdo. haddaan idinka idin diro exercise ama maxay noqonaysaa xarafka h ama h af Soomaali, numberkee ayuu noqon karaa? aan ku siiyo, waxaan siinayaa 1 second. okay, waxaan u malaynaya inaad soo hesheen. xarafka h wuxuu la mid yahay, wuxuu ku jiraa kaalinta 3 ama number 3 wey. intaan ayaan kusoo gabagabeyneynaa casharkeenii qaybtiisii 8 qodob qaybtii 1. qaybaha 2 iyo 3 way ku xigi doonaan.